بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال ومعلنتي تمناد هي برامجكي بيشا بركيسان رمضان كجور من أحكام تيدا آداب تيدا إيوه أعماش خير كبدن يكون حجرتي لقى فايدة سنيو حين سوها إن أحكامتي صومك labadii xalaqee hore midna waxaynu kaga soo warranay waxyaalaha soonka buriya midna waxaynu kaga soo warranay waxyaalaha aan soonka burin ee laga yaabo dadku inay u haystaan ama dadka qaarkood ay moodaan inay soonka buriyaan waxaynu xalaqadan tobnaad kaga warramaynaa insha allahu tacaala dadka cudurdaarka leh ee sharcigu uu cudurdaarka siiyey ee loo ogol yahay inay afuraan soonka dhexdiisa iyo qof walba maxaa hadhow la gudboon dadkaas cudurdaarka leh waxaa ugu horeeya qofka musaafirka ah ayaynu ugu horeysiinayna musaafirka ilaahay baa subxaanahu watacaala siiyey waxaa la yidhaahdo inuu afuri karo marka safarkiisu uu yahay safar dheer oo gaadhaya intii loo gaabin jiray masaafadii qasriga ee salaada lagu gaabin jiray 86 kilomitir ilaa 90 kilomitir meelahaas markuu gaadhayo safarka uu safrayo isla markaana safarkiisu uu yahay safar mubaax ah oo shareecadu ogashahay oo wax ama cibaadiyo diin ah uu safrayo ama shay iska mubaaxa uu safrayo ee uusan macsiyo iyo xaaraan u safrahayn qofkaas shareecadu waxay siisay inuu afuri karo hadhowta maxaa laga doonayaa marka safarka uu ka baxo ayaamihii intuu safarka ahaa ka tegay inuu qadeeyo oo soo qadeeyaa laga doonayaa ayaa laga doonayaa taasi waa ruqsada shareecadu ay siisay laakiin ma u bannaan tahay inuu iska soomo way u bannaan tahay oo waxaa u bannaan isagoo ruqsadaa la siiyey oo afuri karaya haddana wuxuu xaq u leeyahay inuu iska soomo markaa koodee fadli badan ma inuu iska soomo oo soonkiisi iska wataa fadli badan mise ruqsada ilaahay siiyey inuu qaato oo uu iska afuro oo wax iska cuno koodee fadli badan waxay u badan yihiin culimadu waa la kala qaadayaayoo haddii qofkaas musaafirka ah safarkaas inuu ku soomaayo aysan dhib iyo culays ku ahayn oo wax dhibaho ka soo gaadhaya iyo culays ka soo gaadhaya uusan jirin waxaa u fiican inuu soomo ayaa u fiican maadaama wax dhibaho ka soo gaadhaya uusan jirin waxay ugu fiican tahayna waa laba sababood waa midda koobaade ayaamihii ramadaan ee fadliga badnaa ayuu ka faa'iidaystay oo soonkiisiba ugu beegmay oo maalmaha uu hadhow qadayn doono iyo maalmaha ramadaan baa fadli badan marka inuu wakhtigoodii ku beegay oo wakhtigii ramadaan ee fadliga badnaa uu waafaqay waa fadiilo ay tahay inaysan dhaafin hadduu awoodo fadliga labaad ay leedahay ama mudnaanta labaad ay leedahay waxa weeye baraa'atu dhimma qofku intuu noolaan doono ilaahay baa og inuu waajibkii hadda iska sii rido waajibka hadda sii dhaafiyo dee ayada qudheedu meeshay ku jirtaayo waa wax qiimo u yeelaya weeyaan marka qofka haddaan safarku culays iyo dhibaato soonku ku keenahayn inuu soomo baa u fadli badan hadduu culays iyo dhibaato ku keenayana laysa min albiri asiyaamu fi safar markaasoo kale biriga iyo wanaagga kaba mid ah inuu soonkaa isku kalifo ee waa inuu ruqsada ilaahay qaato subxaanahu watacaala qofka labaad oo dadka la siiyey fasaxa ama maaragtay cudurdaarka la siiyey waa qofkii xanuunsanayay ee bukay mariidkii weeye xanuunkana waxaa loola jeedaa waa xanuun haddii qofku la soomo dhibaata ka soo gaadhayso mashaqo iyo culays ka soo gaadhayo xanuunada yaryarka ah ee qofka aan dhibaato ku haynin xoogaa madaxa yaro xanuunaya ilig iyo gaws baa yaro xanuunaya waxyaalo yaryar oon dhib lahayn kuwaas ayagu dee soonkii qofku uma afurayo laakiin xanuunka waxaa laga wadaa xanuunkii qofka dhibaata ka soo gaadhaysa inuu afuro inuu soomo ay dhibaata ka soo gaadhaysa muxuu samaynayaa marka haddiiba uu afuray dadka xanuunkoodu waa laba qaybood dad qaba xanuun aan rajo laga qabin inay ka soo bogsoodaan iyo dad xanuunka ay qabaan rajo laga qabo inay ka caafimaadaan dadka xanuunada qaba ee aan rajo laga qabin inay ka caafimaadaan
dadka noocaas oo kale ah ayaga wax kale lagama rabee fidyay bixinayaan, fidyo unbay iska bixinayaan, maalin walba hal qof bay quudinayaan, wax kale laga dooni maayo. qofkii laakiin xanuunkiisa rajo laga qabo maalinkii ilaahay caafiyo ayuu soo qadayn doonaa insha allahu tacaala, ayuu soo qadaynaya. qofka saddexaad oo dadka cudurdaarka leh ee soonka aan lagu waajibinina waa qofkii waayeelka ahaaye weynaa, rag ha ahaado dumar ha ahaado, isla markaana aan awood ahayn inuu soomo. waayeelku waa labo, mar waayeelku wuu asaasaqaayo caqligiisii oo dhan sidii qof waalan oo kale la mid noqdaa. markuu saasoo kale noqdo waxba lagama rabo, soonna lagama rabo, fidyana laga dooni maayo. waa markuu asaasaqo wuxuu la xukun yahay qofka waalan oo kale. markaa qofka waalanna soon waajib kuma aha, qofkan asaasaqayna ee aan waxba kala garanahayn asna soon waajib kuma aha, fidyana laga bixin maayo. oo shuruudda soonku ku waajiba waxaa ka mid ah an yakuuna caaqilan, shaksigu waa inuu caaqil yahay. markaa qofkii waayeelka ah haddii uu saa noqdo soon lagama rabo. haddii laakiin uu yahay qof aan sidaa ahayn, caqligii waa leeyahay oo caqligiisi waa joogaa, laakiin soonkii ma xamili karo, waa say u badan yihiin dadka waaweyne, fidyo unbaa laga rabaa maalin walba inuu qof quudiyo ayuunbaa laga doonaya. qofka afraad oo dadka cudurdaar kale ah waa gabadhii caadada qabtay iyo gabadhii dhiigga dhalmada lahayd. labadaasina ayaguna marka ay daahiroobaan kadib ayuunbay soo qadayn doonaan insha allahu tacaala. waxaa xiga oo qofka shanaad ah gabadhii uurka lahayd iyo gabadhii ilmaha nuujinaysay. marka alxaamil walmurdic hadday gabadhu ilmo nuujinayso oo marka ama ay nafteeda u baqdo ama ilmaheeda u baqdo, iyo hadday uur leedahay oo markaa sidoo kale ama ay nafteeda u baqdo ama ay ilmaheeda u baqdo, labadaba way afuri kartaayoo afurka sharcigaas siiyey. maxay hadhowta laga rabaa? haddii ay nafteeda u baqday waxaa laga rabaa uun inay soo qadayso unbaa laga rabaa. haddii ay ilmaheeda u baqday inay soo qadayso waa laga rabaa. fidye ma laga doonayaa oo fidye ma ku daraysaa? culimada qaar baa qabo fidye waa lagu darayaa, laakiin daliil badan ma lehee qadaha unbaa iyadana laga rabaa, soo qadaynaysaa. waxaa qofka lixaada qofkii gaajo iyo haraad la xamili kari waayey soonka. qofku haddii gaajo iyo haraad dartood au soonkiiba la xamili kari waayo oo au ka cabsado in naftiisii wax noqoto ama xubnihiisii wax noqdaan ama dhibaata soo gaadho, laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha, waa loo ogol yahay inuu afuro. qofka u dambeeya toddobaad waa qofkii la qasbay ee lagu qasbay inuu wax cuno wax cabo, waxaa lagu qasbay uu samayn, soonkiisi ma ka burayaa? maya, soonkii kama burayo, soonkiisi wuu u jiraa isagoo wax cuno wax cabay. insha allahu tacaala xalaqadatan markaasaynu ku joojin doonaa. wallahu aclam. sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbi wasallam ajmaciin.